السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الكسو دواذا موضوعنا maanta waa macquul marka lagu soo hadal qaado kubadda cagta in markiiba maankaaga ka soo dhacayso ciyaaryahanada cagta fudud ee Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo iyo Neymar balse sheekadu taas way ka duwan tahay oo booskiiba waxaa ku haysata gabadh kubadda cagta haddii hibo loo leeyahay gabadhii hibada u lahayd saaxiibayaal waxaan idinku bishaaraynaa inaanu bartan idin soo golin doono barnaamijyo taxana ah oo toddobaadkiiba laba barnaamij ama laba mowduuc oo macquula idin soo gelin doono fadlan haddii aad channelkeena hore aadan ugu jirin fadlan subscribe noo saar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan channelka hoyga bulshada waad mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah waaba wareer siday kubaddan u ciyaarayso yaakhi ha laga qariyo ciyaaryahanada kubadda cagta adduunka haysta daawade haddaanba su'aal adiga ku weydiiyo saddexda ciyaaryahan ee Messi, Cristiano Ronaldo iyo Neymar Jr. kee ayaad ku bedeli lahayd gabadhan hibada u leh kubadda cagta waxaad haysataa 45 sekin oo ugu codaynaysaa saddexdan ciyaaryahan kii lagu bedeli lahaa balse haddaanba ka gudubno macquul inaadan midna aadan ku bedelin ama aadba ku bedeshay laakiin ka waran haddaan u cimaamado booska afraad balse xeerka Champions Cup-ka aan naga yeeleen balse xulka qarankeeda dumarka haloo safo gabadhan waayo waa ciyaaryahanad cajiib ah waa laacibad cajiib ah waxaadna arki jirtay kubad garoomada loogu talagalay oo lagu ciyaaro balse teedu way ka duwan tahay oo suuqa faras magaalaha kubadda ku dheeshaa oo siday doonto ayay ugu ciyaaraysaa waaw maalintii wadooyinka ayay xidhataa gabadhan marka ay dadku shaqada ka yimaadaan ayay barxadaha ku maaweelisaa dadka magaalada ku nool gabadhii kubadda cagta u dhalatay magaaladeedana dadku aad ayay u jecel yihiin markay ku dhex ciyaarayso suuqyada dhexdeeda yahanadan haddii cidi hibo u leedahay kubadda cagta iyada ayaa hibo u leh arkaynaba ay ciyaarayso waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkeena gaad ka heshay mowduucan la noogu sharaf nooli kulantay amaanillah فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى أوه 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 أوه